halkani waa Darban Media. xaqiiqooyin ku saabsan dalka Japan ama Jamhuuriyadda Japan. intaan barnaamij ugu galin fadlan subscribe inoo saar mahadsanid. dalka Japan oo loo yaqaano Jamhuuriyadda dadka Japan waxa uu ku yaalaa bariga qaaradda Aasiya. waana dal jasiirado aad u badan leh, waxa uuna xuduud la leeyahay wadamo ay ka mid yihiin Shiinaha, labada Kuuri iyo Ruushka ay xuduud badeed wadaagaan. dhulka wadanka Japan oo la sheego in boqolkiiba 97 jasiirado yahay waxaa ku yaala qiyaastii 6,852 jasiiradood. jasiiradaha ugu waaweyn wadanka Japan waxaana ka mid ah Honshu, Hokkaido iyo Kyushu. caasimadda wadanka Japan waxaa la yiraahdaa ama loo yaqaanaa Tokyo. sidoo kalena waa magaalada ugu dadka badan wadanka Japan ama Jamhuuriyadda Japan. waxaana tirada dadka Japan u dhashay lagu qiyaasaa 126 milyan oo qof. waxayna taasi ka dhigan tahay in dalkani uu noqonayo dalka 10aad ee dunida ugu dadka badan. in ka badan 9 milyan oo dadka wadanka ka mid ah waxa ay degan yihiin magaalada caasimadda ah ee Tokyo. dadka wadankan oo qowmiyado kala duwan u dhashay waxaa dadku u badan ay yihiin dadka asal ahaan dalka u dhashay. waxaase ku nool dad asal ahaan ka soo jeeda wadamada Shiinaha, labada Kuuri, Philippines, Vietnam iyo Brazil. calanka wadanka waa midabkiisu waa cadaan, dhexda ku leh goobaabin guduud ah ama casaan ah, sidoo kale qoraxda u samaysan. dalkan ma lahan luqad rasmi ah oo ay dowladdu aqoonsan tahay, hase ahaatee in ka badan 10 luqadood ayaa ka jira oo xafiisyada dowladda looga shaqeeyo. lacagta wadanka Japan waxaa la yiraahdaa yen. gaadiidku ama baabuurtu waxay isku dhaafaan marka Japan ay joogto dhanka bidix. dalkan oo ay taariikhyahanadu sheegaan inuu ka mid yahay wadamada aan la gumaysan waxa uu nidaamka boqortooyo qaatay sanadii 1890 waxaana dastuurka wadanka la qoray bishii Abriil sanadii 1947. waana dal weli nidaamka boqortooyada ku jira. magaca Japan dadka luqadda yaqaana waxay ku micneeyeen asalka qoraxda, waana taas tan keentay in dalku loo naanaysayo ama naanays u qaato dhulkii qoraxda ka soo baxa. dowladihii Japan ee soo maray taariikh ayay ku leeyihiin dagaaladii dunida soo maray, sida kii labaad ee dunida waana halkii uu ku dhammaaday. Mareykanka ayaa gantaalo ku dhuftay magaalooyinka Hiroshima iyo Nagasaki oo Japan ku yaalo bishii Agoosto sanadii 1945. gantaalo nuclear ah waxaana gantaaladaasi ku nuf waayay ama ku dhintay 129,000 oo qofood. dhaqaale ahaan dalkan waxa uu ka mid yahay wadamada dhaqaalahoodu hawliga ku socdo, haddana waa dalka 3aad ee dunida ugu dhaqaalaha badan, waxaana ka horeeya oo kaliya Mareykanka iyo Shiinaha. wadanka Japan oo ay ku yaalaan warshado waaweyn oo qalabeysan oo qalab casri ah ku qalabeysan waxyaabaha uu soo saaro, haddana inta uu dhoofiyo lacag badan uu ka helo oo ay ka mid yihiin
gaadiidka noocyada kala duwan leh, qalabka isgaarsiinta iyo alaabo kale oo badan. Dadka Japan waxa uu warbixin uu Bangiga Adduunka soo saaray 2007 waxa uu ku sheegay in 17% yihiin kuwa faqri ah. Xagga diimaha, haddii aynu eegno qodobka 20aad ee dastuurka waddankaasi ayaa dhigaya in dadka waddankani ay u madax bannaan yihiin diinta ay doonayaan, sidaasi oo ay tahay qiyaastii 90% dadka Japan ayaa haysta waxa la yiraahdo diinta Buddhism. Muslimiinta waddankaasi oo bulshada waddankaasi marka la eego aad u yar, waxaa la aaminsan yahay in Islaamku uu dalkaasi gaaray horaantii sanadii 1900. waxaana waddankaasi ku yaala masaajid aan tiro yarayn oo Allah subxaanahu wa tacaala lagu caabudo. Dharka dhaqan ahaan ee dadkaasi u xirtaan dalka Japan, raggu waxa ay xirtaan 2 maro oo midna qaarka sare iyo midna qaarka dambe ay ka hoos xirtaan oo ay weliba dhexda iskaga keeneen, halka dumarka ay xirtaan maro cambuur u eg, gacmahana waxay ku qaataan bibisyo ay iyaga samaysteen. raashinka noocyada kala duwan ee waddankani laga cuno waxaa ka mid ah bariiska, kalluunka. raashinka ugu fiican ee ay martida siiyaan waxaa la yiraahdaa tofu. ciyaaro ay ka mid yihiin karateega iyo feerka ayaa ka mid ah ciyaar dhaqameedka ee waddankaasi Japan ay leeyihiin. xagga ciyaaraha, kooxda kubadda cagta ee dalka Japan waa kooxda ugu badan ee guul ka gaartay ciyaaraha Aasiya. way 4 jeer qaadeen sanadii 2004. dalkan waxa uu martigeliyay koobka ciyaaraha adduunka ee FIFA, waxaana la qabtay dalka Kuuriyada Koonfureed. gabdhaha kubadda cagta ee qaranka Japan waxa ay qaadeen koobka adduunka ee gabdhaha sanadii 2011. ciyaaraha golfiga ayaa ka mid ah waxyaabaha aadka loogu jecel yahay dalka Japan. intaas ayaan ku soo koobaynaa warbixintii koobneed ee kaga hadlaynay waddanka Japan. hana hilmaamin inaad subscribe noo saartid. mahadsanid.